إن هالشيء كاس أو معناه أو كلونك كين لو دوفي معناه دبوينا وأركينا ضد مواطن صومالي أنا محل لو فينا بورت شيء مركي كابدينا وحلو فكرته wixii baa anaga ma bahayna malaay ma bahayna maxaa loo fiyaa xilli waxa lagu jiraa oo kalluun la'aan heshiiskaas kale in dad noojito noo malaanay wax dad noojito maxaa yeelay malaay aniga wanaga badan wax loo fikirna ma jiro meesha anaga Ethiopia malaayga ugu bedelano malaayga jaadka ugu bedelano waa malaay fridge ah dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa kala saxiixday heshiis qodobeysan oo markaas ku saabsan labada dal in ay soo celiyaan xiriirkooda iyo sidoo kale in ganacsiga la isku furo Kenya waxay aad u danaynaysay in Soomaaliya loo dhoofiyo qaadka halka Soomaalidu ay aad u danaynaysay in kalluunka loo dhoofiyo dalka Kenya faray waxa ka horeeyay heshiis ay Soomaaliya la gashay dalka Ethiopia oo qaad u soo dhoofinaya Soomaaliyana kalluun ay dhoofineysay ganacsatada kalluunka ayaa waxa ay sheegayaan in xilligan uu yahay mid aad u yar kalluunka Soomaaliyana aysan awood u lahayn in kalluun ay u dhoofiso dalka Kenya maadaama xilligan xilli xayaa uu yahay dadka Soomaaliyeedna uusan ka badnayn waxa ay dalbadeen in heshiiskaasi dib loogu laabto qaar ka mid ah ganacsatadan ayaa la hadlay Somali Cable in heshiiskaas oo macnaa oo kalluunka Kenya loo dhoofiyo macnaa dibweyna arkayna dad muwaadin Soomaali ah macnaa hore waxa loo dhaajiri maalkiina wayna cuna malaayga hadda malaayga macniis loo dhaxay in malaayga waxaana ku quraacno ku qadeeno ku cashayna rabnaa ساسا ربنا دا إله إدمو ملايين بدأ يجا ملايين سومالي أنتو حنينا ربنا مركي أو معنا أو ساعة عمل حقائق جرتو ملايين أنو كان أنفع لكن ملايين مركي أو عارمك بلاده مركز والدو فكرة ماشي بدأ حياتك ورلت والدو فكرة لكن هذا مالدو فكرة أنو كيا ملايين وبان كودينا بلد باديو أرتي معنا بلد كتتك جوا ملايين ونجرين هذا باديدي هذا ولا يبرتي لأن ملايين وحموهين إري يجيلك يدورده ملايين أنت برمية الله أركي دتكي سومال ملايين برتين الحمد لله رب العالمين وحنج الله ملايين أنت يقولون وكانوا كلونك هذا وقايل مقرت وحوي قايل وي الحمد لله رب العالمين حان كينا بد حريرك كينا حيل حقايا لو جرا كيلو دي يوم بيجي $7 فريش سديد ومرايا برفكن اللي حي برتضو مرايا marka xiligan kalluunka kalluun caana hadda aan u taaganayn laakiin hadoo kalluun yimaado waa shaqaysanayna alxamdulillah laakiin waa iska sabrayna waa sugeynaa ilaa deerta laga gaarayo ma sha Allah hadda kalluunka hadda sunu ugu filnaan lahayn micnaha waa lagu kala tagi lahayn meesha in lagu filan yahay meesha uu joognaa wixii yimaado maartay ama barfaad ama fresh aad oo badaas ka yimaado waa lagu filan yahay dadka Soomaaliyeed halka ka shaqaysta alxamdulillah rabbil caalamiin waa maxal loo finaa boorta sheyga markay ka badiyina wax loo fikirtaa wixii baa anaga ma bahayna malaay ma bahayna maxal loo fiyaa xilli waxa lagu jiraa oo kalluun la'aan wax la dhoofiyo meesha ma yaalaan anaga waa calooshayna wax u laa adna waxa leedahay maxaa la dhoofiyaa wax la dhoofinaa meesha ma yaalaan wallahi billahi taala dalka Soomaaliya kalluunkeen aad ugu filan ma sha Allah xilli waxa jirta oo bad furan oo yahay kalluunka zaid oo imaada Soomaaliya dhan waa ku filantahay Soomaaliya dhan kalluunku waa kaafi ma sha Allah kalluunka wallahi billahi taala xilliga xagaay kaliyo oo macnaa badda ay xirmato ay kacdo oo qaali noqda ilaan qofka kalluunka gadaa $7 asaa ka soo bixi $2 iyo $1 ma gadi karo $8 waa inuu gadaa $1 macaash oo ka raadiyaa kalluunka mar asaa $1 imaado mar asaa $1 imaado marba si waay hadda waxaas ma jiraan hadda waa xagaa aniga malaa u baahnayga badan hadda waxaas ma jiraan markuu malaa baday macquul ah hadda waxaas hadda malaa sawa xagaa hadda wax meel yaala ma jiro habad meel mataala hadda malaa ma sha aad u kacsiya malaa hadda ilo sasta kiilo $8 dadka booyin maxaa yeelay dadka maanta Soomaali boqolkiiba 70 malaayga cunaan waxa hilibku cunaa 60 kilo waa bis ma sha Allah maya taas malaayga ana soo cusubta malaaygeena ana laabata malaayga waa soo saarna ana soo saarna ma dhufis ma jiro waxas dhufis Allah ma jiro heshiiskaas kale in dad noojito noo malaanay wax dad noojito maxaa yeelay malaay aniga wanaga badan wax loo fikirna ma jiro meesha malaay ana wajir malaay wana wajir yaabad xiliyaan wajir hadda inay bad hadda ana dhufis macna damna wajirto heshiiska Soomaaliya iyo Kenya oo heshiiska oo ku saleysan yahay Soomaaliya in qaadkeeda loo fasaxay heshiiska maadaama oo Soomaaliya iyo Kenya heshiiska aniga taas waxaan ka dhihi lahay Kenya maadaama anaga xoolaheeda inoo soo dhoofinaysa jaadka oo ganacsigeeda danaheeda inoo fushanayso annagana inaa ganacsigeena malaay aan ku fushano badalada aykan ina anaga jaadkii aan ka qaadano aykan kulunkeena ee qaadana taas waa mid aad u fiican madaxweynana waxa uu ku baraarujiyaa okay way
faa'iidadu Kenya oo jirto Soomaaliya kalluunka inay qaadato horta mid waa koow horta Kenya markii badda laga hadlo badda anaga kheyraadkan badana aad u weyn oo Ilaahayna si horta Kenya malaha bad yaro waxay leedahay la dhahay Mombasa oo aad u yar ma fahamtay anagana waxaan leenahay bad aad u weyn oo barwaaqo intaas kiiloomitir oo kalluunka jaadarka ku jiro malaay ku jiro daambiri ku jiro nixaas ku jiro quwadi ku jirto intaas oo waxyaabaad oo kala duwan oo Ilaahayna si oo waliba saaska Ilaahay muxuu yiri wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith marka Kenya badeeda aad u koobta weena yar tahay marka danta oo jirto waxa way badeeda waxaan la yeelay kalluun aan ku jirin ayaa Kenya oo kasi tayo fiican ayaa ku jiro faa'iidadaaseen ururta Soomaaliya oo heshiiska ay la gashay Kenya marka ka hadlo waa heshiis oo macnaha oo waxa dhigi kara aniga xilli hadeertan oo heshiis oo qaad lagu bedeshto malaay ma jirabo sababtoo ah bilaa hadeertan anaga aan ku jirno dhan waa bilaa xagaaya oo anaga badii galila oo malaay la'aan ayna haasaa bal ka waran adii oo la dhaho malaayga qaad ku bedelinayna dhibaato aad iyo aad u weyn oo anaga nagu soo kordhay waaye sababtoo anaga malaaygeena bilooyin oo socdaa bilooyin oo isxiraa marka waxa dareensanahay oo aad iyo aad dareensanahay in culeysyo badan ee nooga imaadaan dhanka badda culeysyo aad iyo aad u fara badan in badda nooga imaadaan adeeta maraakiibta shisheeye iyo adeeta kuwa kale oo badda ka kalluumaysto inta waa dareensanahay sababtoo anaga shacabka Muqdisho adaanahay kalluunka sida ay u heli jirnay xataa uma helno anaga Ethiopia malaayga ay ugu bedelano malaayga jaadka ugu bedelano waa malaay fridge waa malaay fridge oo fridge loo marsiinayo oo waa malaayada anaga keedka noogu jiro hadda markii heshiiska oo badda la dhaho malaay lagu bedelina markii la dhaho cadada malaayga naga baxaysa anaga xataa ma soo gasho ilaan meel ka keenayna male Soomaalidu ay leeyihiin ayaa maanta dadkan ay isku soo baxeen isla markaana ay ku ciyaarayaan sidoo kalena ay ku dabaaldegayaan waxay isaga soo baxeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ugu horeyso degmada hadda ay ka socoto munaasabadan oo ah degmada Xamarweyne sidoo kale waxay ka yimaadeen degmooyinka waa bari Boondheere Cabdicasiis iyo degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Banaadir ciyaartan oo ah mid xiise iyo xamaasad gaar ah leh isla markaana kumanaan qof ay ka soo qayb galeen kuwaas oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir kuwaas oo isugu yimid degmada Xamarweyne oo ah xarunta ugu weyn ee lagu qabtay ciyaartan ayaa dhammaantood waxa ay ka sinaayeen dheelitaanka ciyaartan waxaana la sheegay in toddobaad dhan ay soo wadeen qur'aan akhris maantana ay tahay maalintii gabagabada isla markaana lagu soo gabagabaynayo ciyaar dhaqameedkan qaar ka mid ah odayaasha horboodayay dadkan ayaa ka warramay taariikhda ciyaartan caada dhaqameedka banaadiriga oo loo yaqaan shirta sanadka waxay ku soo aadaa sanad kastaba sida aad ogtiin xilliyada waa 4 xilli gu iyo deer iyo xagaa iyo jilaal xagaay markay 15 mareyso ayaa la bilaabaa quraanka la akhriyo sanadka todobada maalin ka herta xagaayga ee 22 ah todobadaas maalin waxa la akhriyaa quraan maalinta oo kowda deer ay tahayna waa maalinta dibka la shido maalinta labaadna waa maalinta caada dhaqameedka Banaadiriga ay ciyaaraan caada dhaqameedkan ma aha mid hadda la bilaabay waa soo jireen qarniyaal aad u badan oo soo jiray markay ugu yartahay 17 qarni iyo 20 qarni waay oo sida loo ciyaaray goobtan aad hadda ku sugantiin aad u jeedin meeshan waxa la yiraahdaa Seenida Moorsho waa meesha ugu weyn Banaadiriga kulanka reer Banaadir ay meesha ku kulmaan waa meesha ugu weyn waay Seenida Moorsho meeshan waay caada dhaqameedkan Banaadirigana waxa lagu xusaa meel kasta oo ay degan yihiin reer Banaadir laakiin hadda si gaar ahaan goobaha oo lagu xuso waxa ka mid ah Shangaani Cabdicasiis Xamarweyne waa beri Xamar Jajab waa meelaha lagu xuso shirta oo laga ciyaaro caada dhaqameedka shirta oo loogu dabaaldego oo damaashaadkaas iska dhaco goobahaas waay shir sanadeedkan Soomaalida dhaqamo badan ayay leeyihiin
nin walba dhaqan u gaara uu leeyahay beelaha banaadiriga si sannadeedkan ay qabtaa oo soo jiray ku dhowaad 300 oo sano in ka badan marka waxay ku bilowdaan 7 maalmood ayaa waxaa la akhriyaa quraan markuu quraanka dhammaado maalinta ku xigta waxaa la sameeyaa galabtii dabshid waa caado dhaqameed kadib sida maanta oo kale la sameeyaa shir sanadeedka bilowdo inta ku dhaqan degmooyinka 17 degmo ee ay degiyihiin beelaha banaadir kulli waa laga dhigaa tusaale ahaan maanta xildhibaan Cumar Shariif Jeeg wuxuu ka soo bilaabay degmada waa bari ilaa waxaan ku imaanay meesha hadda aan taaganahay xamar weyne sayda moorsha la yiraahdaa waa meesha la isku yimaado oo banaadir u weyn sidoo kale xildhibaan Shariif Cumar Jeeg oo kamid ah siyaasiyiintii ka soo qayb gashay ciyaar dhaqameedkan ayaa ka waramay dhankiisa taariikhda ciyaar dhaqameedkan ay ku leedahay bulshada banaadiriga maanta waa taariikhda waa sanad banaadiriga ay qabsadaan dhaqan iyo hidde ah oo sanadkaba ku soo aado maanta oo kale waxaan qabin jirnay abka ilaa 100 sano marka sanad kastaba waxaan u taagannahay inaanan marnaba taariikhda aanan micnaha aan laga been sheegin waxaa laga soo baxaa degmooyin gobolka banaadir sida cabdilcasiis shangaani xamarweyne xamar jajab waa beri ilaa iyo wardhiigle ayaa laga imaadaa iyo degmooyinka kaloo daafaha inta taqaano dhaqanka gobolka banaadir waxaa waaye dadne micnaha soo jireenkaa soomaaliya oo dhan way taqaanaa laakiin waa dadka ku dhashtay gobolka banaadir dadka aanan ku dhalanin ma garan karaan laakiin dadka ku dhashtay dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha jooga way og yihiin waa ogtihiin sida istunka oo kale afgooy lagu qabto halkan badgalaa la dhahaa qur-aanaa la aqriyaa musiibada dalka ku habsatay ilaahay inuu musiibada ka saaro 10 cisho ah waxaa la aqrinaya qur-aan oo loogu duceynayo waddanka ilaahay inuu xasilooni ka dhaliyo